Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaynu qaadanaynaa casharkii laytanaad ee madaxsaad asaaska ah. Waxaynu weli ku dhex jirnay multiplicationka oo ah isku dhufashada. Waxaynu qaadanaynaa qaybta u dambeysay multiplicationka ama isku dhufashada oo ah multiplying decimal numbers by decimal numbers. Sida tirooyinka dhibicleyda isku dhufto iyo tiro kala dhibicley ah lagu dhufto. Waxaynu ka qaadan doonaa dhowr tusaalooyin. Tusaalaha u horeeya waxaa waaye eber dhibic laba oo lagu dhuftay eber dhibic saddex. eber dhibic laba oo lagu dhuftay eber dhibic saddex. Marka la rabo in la isku dhufto sidee oo shaqeynayna. Qaybta kore waa decimal numbers ama tiro dhibicley ah. Qaybta hoosena waxaa waaye decimal number ama tiro dhibicley ah. Waxaa ogaata markii laba tiro oo decimal number la isku dhufanay waxaa markasta waajib ah ama markasta lama marmaan ah in laba dhibic isku aadaan. Oo tusaale haddii loo eber dhibic toban iyo labo waxaa ku dhufataa hal dhibic labo meeshan kuma qori kartid. Qaabkaas uma qori kartid. Waxaa la rabaa inaad dhibicaas isku aadiso. See isku aadine waxaa la rabaa eber dhibic labo inaad ku aadiso dhibic kale. See u qori marka kan waa tiro whole number ah. Saddexaad yaa decimal number marka waxaa sameynaya halka waxaa ku qori waxaa ku hoos qoray halka iyo eberka hoos qoray oo eberta iyo halka waa tiro whole number ama tiro caadi ah. Kadib dhibic isku aadine saddex marka waxay qormaysaa halkaas hoosteeda. Qaabkaas ayaa loo qoraa markii decimal numberka loo qorayo. Markaan ka shaqeynayo eber dhibic labo oo dhuftay eber dhibic saddex waxaan sameynaa marka saddex waxaan ku dhufanaa labo saddex labo ku dhufo meeqo waa lix. Haddana saddex waxaan ku dhufanaa eber saddex eber ku dhufo waa isla ebertii. Mar labaad eberta waxaan ku dhufanaa labo eber labo ku dhufo waa eber waxaan ku qoraynaa eberta kale hoosteeda. Hal dhibic maxaa la hal god ayaan ku sakanaynaa. Haddana eber eber ku dhufo waa isla ebertii. Kadib tirooyinkan noo soo baxay aan isku darsanaynaa. Lixda tiro ayaan lagu daray mataala hoosteeda soo qaado eber eber ku dar waa isla ebertii. Haddana ebertan tiro lagu daro meeshan yaallo soo qaado marka waxaa noo soo bixi eber eber dhibic lix. Markaas kuma ekanaysa jawaabta waxaa xisaabsanaysaa inta dhibic qaybta sareeya iyo qaybta hooseeya ayaa tirooyinka dhibicleyda xisaabsanaysaa. Koreya waxaa dhanka midig waxaa ka ah hal god. Hooseeyana waxaa hal dhibicda dhanka midig waxaa ka ah hal god. Isku darso marka laba god jawaabta ku soo baxa laba god ayaa xisaabsanaysaa. Marka koow iyo labo labada eber dhexdooda wax ku qoraysaa dhibic ku qoraysaa. Marka waxaa noqonaya eber dhibic eber lix. Tusaalaha labaad waxaa sanaa hal dhibic shan oo lagu dhuftay eber dhibic afar. Waxaa sameynaysaa afarta waxaa ku dhufanaysaa shan afar shan ku dhufa meeqo waa labaatan eber ayaa qoranaysaa laba wata. Haddana afar waxaa ku dhufataa hal afar hal ku dhufa meeqo waa afartii maxay watay labo ku dar afar labo ku dar meeqo waa lix. Haddana ebertan waxaa ku dhufataa shan eber shan ku dhufa meeqo waa eber waxaa qoraysaa godka labaad hoostiisa eber baan qoraynaa. Kadib haddana eber waxaa ku dhufataa hal eber hal ku dhufa meeqo waa hal eber ku dhufa meeqo hal waa meeqo waa eber. Kadib waxaan sameynaa eberta soo dejiso haddana waxaa sameysaa lix waxaa ku dartaa eber waa isla lixdii ebertana soo qaado. Intaa kadib waxaa xisaabsanaysaa inta dhibic inta tiro dhanka midig ka xigta dhibcooyinka haysta qaybta kore iyo qaybta hoose. Qaybta kore dhanka midig waxaa ka xigta hal god qaybta hoosena waxaa ka xigta hal god. Isku darso marka laba god waaye jawaabta ku soo baxda laba god xisaabsanaysaa koow iyo labo maxay noqon marka eber iyo lixda dhexdooda inaad dhibic ku qorto. maxay noqon marka jawaabta eber dhibic lix eber. Tusaale saddexaad waxaa waaye laba dhibic afar oo lagu dhuftay hal dhibic labo. Maxaa sameynaysaa marka laba waxaa ku dhufanaysaa afar laba afar ku dhufa meeqo waa sideed. Haddana laba waxaa ku dhufataa labo labo ku dhufo afar. Kadib qaybta kale aysan god kale hal waxaa ku dhufataa afar markasta dhibic ma xisaabsanaysid marka u dambaysa jawaabta ku soo baxa ayaa dhibic xisaabsanaysaa. Marka hal afar ku dhufa meeqo waa afar. Lambarka godka labaad ku qoraysaa hal god baa ka soo sakanaysaa. Haddana hal waxaa ku dhufataa labo hal labo ku dhufa meeqo waa labo. Kadib waxaa sameynaysaa sideed soo qaado kadib haddana afar afar ku dhufo afar afar ku dar meeqo waa sideed kale. Labadana waxaa sameynaysaa waa soo qaadanaysaa. Kadib waxaa xisaabsanaysaa qaybta kore dhibicda dhanka midig waxaa ka xigta meeqa tiro waxaa ka xigta hal god oo afar ah dhankan waxaa ka xigta hal god. Marka waxaa noqonaya godkan godka isku darso laba god jawaabta ku soo baxda laba god ayaad xisaabsanaysaa. Marka waxaa noqonaya laba dhibic sideed dhibic waxaan ku qornay laba dhibic sideed. Tusaalaha afraad waxaa waaye toban laba dhibic afar shan oo lagu dhuftay saddex dhibic lix sideed. Markasta waxaad fiiro gaar u yeelataa oo iska ilaalisaa inaad
laba dhibac isku aadisa markaas in laba dhibac hal in isku aadiso hal saddexdan kuma qori karno halka hoose sababtoo ah dhibic isku aadisa haddaa dhibic isku aadinin markii aad isku dhufanaysa laba tiro oo decimal number ah jawaabta kuusoo baxaysa mid khaldan bay noqonay marka labada dhibic waana markaas isku aadisaa haddaan ka shaqeyna marka sideed waxaan ku dhufaneynaa shan sideed shan ku dhufa meeqa waaye waa afartan maxaan qoraynaa ebertaa qoraynaa maxaa wadanaa afar haddana waxaan sameyneynaa afarta waxaan ku dhufaneynaa sideeda ama sideed waxaan ku dhufaneynaa afarta sideed afar ku dhufa meeqa waa soddon iyo labo maxaa wadatay afar baa wadatay ku dar waa soddon iyo lix lixdaa qoranaysaa maxaa haysataa saddex kadib sideedan waxaa ku dhufanaysaa saddexdan sideed saddex ku dhufa meeqa waa toban iyo lix maxaa wadatay waxaa wadatay saddex ku dar toban iyo lix saddex ku dar meeqa waa toban iyo sagaal sagaalka qoraysaa kadibna hal baa wadataa haddana sideed waxaa ku dhufanaysaa hal sideed hal ku dhufaa meeqa waa sideed maxaa wadatay hal baa wadatay ku dar sideed hal ku dar meeqa waa sagaal qaybtaasi waa dhameynay haddana waxaan bilaabaynaa godka labaad oo lixda ah lix waxaa ku dhufanaysaa lixda waxaa ku dhufanaysaa shan lix shan ku dhufa meeqa waa soddon maxaa qoraysaa eber lixda hoosteeda maxaa wadatay marka eber ayaan qoranay maxaa waana saddex haddana afar waxaan ku dhufanayna lix ama lix waxaan ku dhufanayna afar lix afar ku dhufa meeqa waa labaatan iyo afar maxaa wadatay saddex labaatan iyo afar saddex ku dar waa labaatan iyo toddobo haddana waxaa sameynaysaa lix waxaa ku dhufanaysaa labo lix labo ku dhufa meeqa waa toban iyo labo maxaa wadatay labo toban iyo labo waxaa ku dartaa labo waa toban iyo afar afarta qore hal baa wadataa kadib lix waxaa ku dhufataa hal lix hal ku dhufa meeqa waa lix maxaa wadatay hal ku dar waa toddobo qaybtaasna waa naga dhamaatay waxaa bilaabaynaa qaybta saddexaad oo godka saddexaad ah saddex waxaa ku dhufanaynaa shan saddex shan ku dhufa meeqa waa toban shan waxaa ku qoraysaa godka saddexaad toban shan shanta qoro maxaa wadataa hal baa wadataa haddana waxaa sameynaysaa saddex waxaa ku dhufanaysaa afar saddex afar ku dhufa waa toban iyo labo maxaa wadatay hal ku dar waa toban iyo labo waxaa ku dartaa hal waa toban iyo saddex saddex qoraysaa hal baa wadataa haddana saddex waxaa ku dhufataa labo saddex labo ku dhufa waa lix maxaa wadatay hal ku dar waa toddobo toddoba qoraysaa mar kale saddex waxaa ku dhufanaysaa hal waa saddex wax ma wadatay maya saddexda qor marka hadda ka shaqayska waa noo dhamaatay tirooyinka noo soo baxay fara badan ayaan isku darsanaynaa waxay noqon marka waxaa soo qaadataa ebertan soo qaado haddana mar kale lix waxaa ku dartaa eber waa isla lixdii kadib waxaad sameynaysaa sagaal waxaa ku dartaa toddoba waa toban iyo lix waxaa ku dartaa shan toban iyo lix markaa shan lagu daro meeqa waa labaatan iyo toban iyo lix marka lagu daro shan meeqa waa labaatan iyo kow kaa qoranaysa laba wadataa kadib waxaad sameynaysaa sagaal waxaa ku dartaa afar waa toban iyo saddex saddex ku dar waa toban iyo lix maxaa wadatay labo toban iyo lix laba ku dar meeqa waa toban iyo sideed maxaa wadataa sideed baa qoraynaa hal baa wadataa kadib toddoba toddoba ku dar meeqa waa toban afar maxaa wadatay hal ku dar waa toban iyo shan shantaa qoraynaa hal baa wadataa kadib saddexdan waxaa ku dartaa halka wadatay oo afar ah halkaas jawaabtu ku ekaatay laakiin waxaa noo dhiman dhibicda inaan xisaabsano dhibicda waxaan dhahaynaa dhibicda dhanka qaybta kore dhanka midig waxaa ka xigta laba god qaybta waxaan haysanaa laba god baan haysanaa qaybtana waxaan haysanaa qaybta hoosena waxaan haysanaa laba god isku dar afar god marka jawaabta noo soo baxda waxaan xisaabsanaynaa afar god god koowaad labaad saddexaad afraad shanta iyo sideedda dhexdooda waxaan ku qoraynaa dhibicda halkaas ayaan ku qoraynaa marka waxaa noo soo baxday afartan iyo shan dhibic sideed hal lix eber tusaalaha shanaad waxaa haysanaa labaatan iyo afar dhibic toddoba shan waa lagu dhuftay lix dhibic afar waxaa sameynaysa marka afarta waxaa ku dhufanaysaa dhammaan qaybta kore adoo iska nataraya ama iska danaynaynin dhibicda marka afarta waxaa ku dhufanaynaa shan afar shan ku dhufa meeqo waa labaatan waxaa qoraysaa eber maxaa wadataa labo haddana waxaa sameynaysaa afar waxaa ku dhufanaysaa toddobo afar toddoba ku dhufa meeqa waa labaatan iyo sideed maxaa wadatay laba wadatay labaatan iyo sideed marka laba lagu daro meeqa waa soddon waxaa qoraysaa eber saddexaa wadataa mar saddexaad waxaa afartan ku dhufanaysaa afartan afar ku dhufa meeqa waa toban iyo lix maxaa wadatay saddex toban iyo lix marka saddex lagu daro meeqa waa toban iyo sagaal sagaalka qoraysaa maxaa wadataa hal haddana afar waxaa ku dhufanaysaa labo afar labo ku dhufa meeqa waa sideed maxaa wadatay hal ku dar sagaal kadib waxaa sameynaysaa lixdan qaybta soo dhameynay lixdan waxaa ku dhufanaysaa qaybta kore lix waxaa ku dhufataa shan lix shan ku dhufa
waa 30 waxaa qoraysaa eber godka labaad ay ku qoraysaa eberta qoraysaa 3 baa wataa haddana 6 waxaa ku dhufataa 7 6 markaa 7 ku dhufato waa 42 maxaa watay 3 waa 45 shanta qoro 4 baa wataa kadib haddana waxaa samaynaysaa 6 waxaa ku dhufanaysaa 4 6 4 ku dhufo meeqa waa 24 maxaa watay 4 24 markaa 4 ku darto meeqa waa 28 8 qoro hal baa wataa 8 qoro 2 wataa haddana 6 ku dhufataa 2 6 2 ku dhufo meeqa waa 12 maxaa watay 2 ku dar 14 14 markaa hadda waa wada qoraynaa maadaama aan wax kalena dhinayn kadib tirooyinka la soo baxaya isku darsanaynaa eberta soo qaado kadib haddana eber eber ku dar waa isla ebertii kadib waxaa samaynaysaa 9 ku daraysaa wax ku daraysaa 5 9 ku daro meeqa waa 14 afarta hore hal baa wataa kadib 9 iyo 8 isku dar waa 17 maxaa watay hal ku dar waa 18 qoro hal baa wataa afarta waxaa ku dartaa halka watay waa 5 kadib halkan tiro lagu daro meesha kuma qorro ama ma yaallo soo qaado kadib tirada la soo baxday waxaan xisaabsanaynaa dhibicda qaybta kore waxaa haysanaa 2 god oo godkan iyo godkan qaybta hoosena waxaa haysanaa hal god isku dar marka 3 god haysanaa markaa noqonaya godkan iyo godkan iyo godkan 8 iyo 4 dhexdooda inaan ku qorno dhibicda markaa soo bixi 158.4 eber eber tusaale lixaad oo ah tusaale u dambeeya ayaynu qaadanayna waxaa haysanaa 105 oo dhibic 6 oo lagu dhuftay 2.75 waxaa samaynaysa marka 6 waxaan isku dhufaynaa 5 iyo 6 6 5 ku dhufa meeqa waa 30 eberta qoro 3 aa wataa haddana 5 waxaa ku dhufataa 5 5 ku dhufa meeqa waa 25 maxaa watay 3 25 marka 3 lagu daraa meeqa waa 28 8 qoranaysaa 2 aa wataa 5 waxaa ku dhufataa eber 5 eber ku dhufa meeqa waa eber maxaa watay 2 ku dar 2 eber ku daro meeqa waa 2 haddana 5 waxaa ku dhufanaysaa 1 5 1 ku dhufa meeqa waa 5 tiro baa watay maya 5 noo qor marka godkaas waa dhamaynaa godka labaad bilaabaynaa 7 waxaa ku dhufataa 6 7 markaa 6 ku dhufta meeqa waa 42 labada qoranaysaa 4 baa wataa 7 waxaa ku dhufataa 5 7 5 ku dhufa meeqa waa 35 maxaa watay 4 35 4 ku dar meeqa waa 39 9 ka qoranaysaa hal baa wataa kadib 7 waxaa ku dhufataa eber 7 eber ku dhuf waa eber maxaa wadatay 3 ku dar waa 3dii le haddana 7 waxaa ku dhufataa hal waa isla 7dii godkaasna waa dhamaynay mar saddexaad labadan waxaa ku dhufanaynaa 6 2 6 ku dhufaa 10 iyo 2 labada qoro hal baa wataa haddana 2 waxaa ku dhufataa 5 2 5 ku dhufaa 10 waa 10 waxaa watay haa ku dar 10 baa hal baa watay 10 ka hal ku daro meeqa waa 11 hal baa wataa 1 qoro kadib 2 waxaa ku dhufataa eber 2 eber ku dhufaa eber maxaa watay hal ku dar 2 eber marka hal ku daro eber waa halkii kadib 2 waxaa ku dhufanaa hal ugu dambeyn 2 marka hal ku dhuftaa meeqa waa 2dii intaa kadib tirooyinka noo soo baxay ayaan isku dardarsanaynaa waxaa noo soo baxay marka eberta noo soo qaado eberta soo qaad kadib 2 iyo waxaa isku dartaa 8 2 8 ku dar waa 10 eberta qoro hal baa wataa kadib waxaa samaynaysaa 2 waxaa ku dartaa 9 waa 11 2 ku dar waa 13 maxaa watay hal waa 14 afarta qoro hal baa wataa kadib 5 iyo 3 isku dar waa 8 hal ku dar waa 9 tiro ma watay hal ku dar 9 hal ku dar waa 10 eberta qoro hal baa wataa kadib 7 iyo 2 7 iyo hal isku dar waa 8 tiro ma watay hal ku dar waa 9 kadib waxaa samaynaysaa labadan tiro lagu daro kuma qorro meesha ma taalo soo qaado kadib waxaa sameysanaysaa dhibicda inta dhibic haysato inta god dhibic haysato qaybta kore waxaa haysataa hal god dhanka midig ka xigta qaybtan waxaa ka xigta dhibicda dhanka midig waxaa ka xigta laba god kadib god kore iyo 2 god isku darso waa 3 god marka waxaa sameysanaysaa 1 2 3 eberta iyo afarta dhexda waxaad ku qoraysaa dhibica ku qoraysaa marka waxaa ku soo baxay jawaabta 290.4 eber eber